السلام عليكم كسر دوادا كنال كمصدر وبيجا النيل معلومات كصعبسن وبيجا الدنيا ugu dheer نيل وبيجا ugu dheer caalamka waxa uu dhex maraa qaaradda Afrika dhirirkiisu waxa uu gaaraa 6650 kiiloomitir waxaana uu u qaybsamaa laba qaybood oo kala ah niilka buluuga ah iyo niilka cad waxa uu ka soo bilowdaa halka loo yaqaan harooyinka waaweyn ee bartamaha Afrika halka ugu fog ee webigan uu ka soo bilowdo waa wadanka Rwanda waxaana uu soo maraa wadamada Uganda iyo koonfurta Suudaan halka niilka buluuga ah uu ka soo bilowdo harada loo yaqaan Tana ee wadanka Itoobiya waxaana uu maraa dalka Suudaan waxayna ku kulmaan niilka cad iyo niilka buluuga ah meel u dhow caasimadda wadanka Suudaan ee Khartoum webiga Niil waxa uu maraa 9 dawladood waxayna kala yihiin Suudaan Masar Itoobiya Kenya Tanzania Uganda Rwanda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah Congo iyo Burundi goobta uu ka soo bilowdo niilka cad waa harada loo yaqaan Victoria waxayna haradan ku taalaa xuduudna u tahay wadamada Uganda Tanzania iyo Kenya waana mid ka mid ah harooyinka ugu waaweyn qaaradda Afrika sidoo kale niilka buluuga ah waxa uu ka soo bilowdaa harada Tana ee wadanka Itoobiya 85 webiga Niil biyihiisu waa niilka buluuga ah kadib markii ay labada qaybood ee niilka cad iyo niilka buluuga ah kulmaan waxa ay sameeyaan magaca caanka ah ee webiga Niil waxaana uu ku dhamaadaa ama ku daraa badda dhexe ahmiyadda ugu weyn ayaa ah in webigan guud ahaan wadamada kulaala oo muhiimad weyn u leeyahay siiba wadanka Masar oo laba meelood ay ku tiirsan yihiin bulshada masaarida webigan muranka ugu weyn oo ka jira gacanka webiga Niil ayaa u dhaxeeya wadamada Masar iyo Itoobiya oo isku haya biyo xireenka weyn ee Itoobiya dhisayso ayagoo dhowr heshiis gaaray mararka qaarna waxa ku soo biiray dawladda Suudaan oo danaheeda ka aragta maadaama uu maro webigan ayaa ah midka ugu dheer dunida waxaana wadamada kulaala uu leeyahay ahmiyad aad u weyn sida Itoobiya oo ka dhalisay tamarta korontada iyo Masar oo bulshadeeda 50% ay ku tiirsan yihiin